السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي تاريخنا waxay ku beegan tahay 24 bisha Juun sanadka 2026 wararkii ugu waaweynaa soo dhacay ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahineynaa. Haddaba qodobada barnaamijkan idinku wayno waxa kamid ah ciidamada Israa'iil oo faahfaahin ka bixiyay dad ay maanta ku dileen weerar ay ku qaadeen Lubnaan. haddaba xiisada ayaa aad u kululaatay iyadoo la sheegay in Netanyahu iyo raggiisu ay kulamo hadda ka leeyihiin arrimihii ka soo kordhay Lubnaan iyo Suuriya. haddaba xaaladda dalka Lubnaan iyo Israa'iil oo istifaacaysa sabab la yaab lana sheegaysa inay ku dishay dadkaas iyadoo xabad joojinta ilaalinaysa sida ay tiri. haddaba iyo Xisbullah jawaabtooda barnaamijkan ku faahfaahinayna. waxaa sidoo kale barnaamijkan ku waynaa wararkii ugu waaweynaa marinbiyoodka Hormuz maanta inta markab oo ka gudubtay iyo jawiga guud xaaladdu siduu yahay. wasiirka lacagta ee Mareykanka ama wasiirka maaliyadda Mareykanka ayaa isaguna tafaasiil ka bixiyay lacagaha loo sii daynayo Iran waxa ay tahay inay ku sameeyaan. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii wararkii aanu kusoo gudbanay barnaamijkaygii koobaad iyo kii labaad. haddaba intaan ku jirno wixii akhbaar ay soo dhaco waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaartaan. asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. haddaba caawa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa waanu ku bilaabaynaa warar cusub oo soo kordhay intaynu kala maqnayn. waa habeennimo Arbaca Khamiisi soo galayso taariikhduna waa 24 bisha 6 2026. haddaba maantay waxaa ka dhacay Lubnaan gaar ahaan koonfurta Lubnaan weerar Israa'iil ay qaaday oo ay 2 qof ku dishay. labada qof ee la dilay buuq fara badan ka dhashay. markiiba warbaahintu waxay sawirayaan Israa'iil weerar ay ku qaaday Lubnaan. marka culays ka jira marka wuxuu yahay heshiiskii Mareykanka iyo Iran wax gaareen waay. Mareykanka markiiba way soo faragelinayaan. isla markiiba marka Netanyahu waa la soo hadlaalay waa lagu soo qayliyay. maxay tahay waxaan? marka waxay sameeyeen ciidankiisu marmarsiye sameeyeen. haddaba marka arintu soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen 2 qof koonfurta Lubnaan iyagoo markaa ku marmarsiyoonaya inay ka soo gudbeen deegaan ay ugu magac dartay Israa'iil goobta amniga. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay 2 qof weerareen iyagoo markaasi goobta amniga ka soo gudbay. waxayna sheegeen inaan marnaba la aqbali doonin in khatar la geliyo ciidankooda ku sugan goobahaasi koonfurta Lubnaan. waaye intaas marka ay marayso marka xaajadu wali waxay marka ciidamadii si faahfaahinayaan sida ay wax u dhaceen. macnaha dhowr warbixin iska soo daba saarayaan. taa marka waxay ku tusinaysaa cadaadiska jira ee in maaragtay culays uu ku noqonayo Israa'iil weeraradii ay iska qaadi jirtay iyo dadkii iska leen jirtay in culays uu ku yimid ayaa meesha ka muuqanaysa. isla markiiba war kale ay ciidamadu soo saareen. marka waxay leeyihiin ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Xisbullah kuwaas oo khatar gelinayay ciidankeena ay yiraahdeen ku sugan koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen dagaalyahanadaasi inay ku soo dhawaadeen meel ay joogeen ciidamadooda ayna u arkayeen inay khatar tahay. deegaanka weerarka uu ka dhacay waxa la yiraahdaa goobta sareysa ama buuraha la yiraahdo Cali Daahir ee ku yaala koonfurta Lubnaan sida ay ciidamadu sheegeen. marka warbixinadaas ama war-saxaafadeedyadaas la soo saarayo macnaheedu marka muxuu yahay loo soo saarayaa? waxaa loo soo saarayaa war-saxaafadeedyada bal waxa kan qiil u sameeya. Mareykanka waa soo qeyliyay marka isla markii marka muxuu sameeyay Netanyahu caawa ayuu wuxuu iskugu wacay golihiisa wasiirada oo uu leeyahay waxaan u baahanahay kulan degdeg ah arrimaha ka soo kordhay Lubnaan iyo arintan. waxaa soo kale su'aalo laga soo weydiiyay hadal uu jeediyay ninka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo barnaamijka hore ku soo qaadanay uu ku yiri xataa Trump hadduu nala soo hadlo ma ka baxayno koonfurta Lubnaan. warkaa meel u yeelaaliyay. marka culays fara badan marka nimankii Israa'iiliyiinta ka haysta dhanka maamulka Trump
haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyayna sheekada laga qoray Netanyahu wuxuu qabanayaa caawa shir ay markaasi uga hadli doonaan arrimaha amniga Lubnaan iyo Suuriya telefishinka 13 ee Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu qabanayo kulan ammaanka looga hadlayo xaaladaha ka soo kordhay Lubnaan iyo Suuriya marka sheekadu marka waxa markii nuxurkeeda la ogaado Iran saamaynta ay ku yeelatay Mareykanka awal waa iska weerari jiray Lubnaan wixii la rabaa lagu sameyn jiray in Falastiiniya day aan dhageysanay la wareysanayo wuxuu lahaa waddanka Iiraaniyiinta Gaza maxay ugu dari waayeen heshiiska Gaza maxay ugu dari waayeen sida hadda Lubnaan loo ilaalinayo oo markay wax dhacaan bal isla soo boodayo hadda Gaza wuxuu yiri xabad joojinna way jirtaa maalin walba dadka waa la xasuuqayaa waa la leeyahay marka arrinka inay noogu daraanay ahaydii marka sheekadaas marka waa sheeko iyaduna cusub waaye marka xaalku halkaas uu maraya wararkaas marka halkaas aan kaga gudbaynaa warbixinada kale ee barnaamijka ku cusub ee aanu soo kordhay waxa kamid ah marin biyoodka Hormuz ayaa war ka soo kordhay goor dhaweyd haddaba marka haddaan idin tuso Hormuz wararka ka soo kordhay kadib markii la sheegay in ay Oman Masqad ay furtay marin biyood ku meel gaar ah oo dhanka Hormuz oo maraakiibto si nabadgelyo ku marayaan iyagoon ka cabsanaynin meeno ilaa imisa markab ayaa ka gudubtay marin biyoodka Hormuz haddaba marka waxa la sheegayaa tirada maraakiibta ka gudubtay marin biyoodka Hormuz inay gaarayso 30 markab oo kuwa shidaalka qaada ah waxaana la sheegay iyo maraakiib kale saakay laga soo bilaabo ilaa hadda marka bishii Maarso ee la soo dhaafay ilaa hadda maraakiibtii ugu badnayd ayaa halka ka talaabaysa waxa soo kale ka gudbaya maraakiib kale oo alaabooyin kala duwan wada kuwa kale oo xataa waxa gudbay dalxiisayaal wada sida la sheegay meel ay u dalxiisayaan ayaguna hawshaas halkaas ay maraysaa warbixintaas marka iyaduna wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay ayay ka mid tahay dhanka kale wasiirka khasaanada ama wasiirka lacagta oo kale ama maaliyadda Mareykanka ayaa wuxuu ka hadlay lacagaha Iran ay u fasaxayaan Mareykanka wuxuu leeyahay waa in ay raashinka iyo dawadaba anaga naga iibsadaan Iran waxay tiri wax anaga nagu qasbay bal inay ka iibsan waataan xalay iyo ka sheekeynayna ilaa shalay oo ay lahayd Iran waxay tiri dhageyst anaga tayada iyo qiimaha fiirinayna hadii wixii qaali yihiin meesha rabna ka gadanayna ninkan marka wuxuu leeyahay meel kale kama gadan kartaan uu leeyahay maanta usaasu hadda dhow warar u soo saaray uu leeyahay haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay wasiirka maaliyadda ama lacagta Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in uu marka cadaadis dhaqaale iyo go'doomintii Mareykanka dhinaca badda uu saaray Iran ay Iran ku qasabtay inay miiska wada hadallada timaado wasiirka Mareykanka ayaa wuxuu u warramay shabakada la yiraahdo CNBC ayaa wuxuu sheegay in cadaadis la saaray Iran oo ku qasbay inay heshiis aqbasho dhanka kale wuxuu sheegay lacagaha Iran ee marka loo sii deynayo in ay tahay inay ku iibsadaan cunnada iyo dawada Mareykanka marka arrinkaas marka isaguna uu soo laalaabtay naga iibso annaga oo qasab ah lacagtayna annaga iskale awla naga xanibtay hadda alaabtayda iga iibso ee alaabtaadu tayadeeda iyo raqiiskeeda fiirinayna ma meel kale aadin aniga naga iibsanaysa sheeko walla adduunka ka socod haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa wixii akhbaarada soo kordhay